dowladaha Somaliland iyo isutaga Imaaraadka Carabta heshiiskan ay kala seexdeen oo ah mid taariikhi ah kaas oo kor loogu qaadayo mashaariicda horumarineed ee labada dowladood ay wadaagi doonaan mashaariicdan dowladda isutaga Imaaraadka Carabtu ay ka fulinayso dalka Somaliland ayaa heshiiskan kor loogu qaadaya mashaariicdana waxa kamid ah dhismaha wadada isku xiri doonta magaalo xeebeedda Berbera iyo xarun ganacsiyeedka Togwajaale ee xuduudda u ah dalka Somaliland iyo Ethiopia ee mashruuca Berbera Corridor dhismaha madaar cusub oo casri ah oo ay yeelan doonto xarunta gobolka saaxil ee magaalo xeebeedda Berbera heshiiskan ayaa noqon doona mid wax weyn ka tara kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha ee bulshada Somaliland isla markaana kor u qaada isticmaalka marsada Berbera sidii ay bulshada ku dhaqan mandaqadan geeska Afrika ay u isticmaali lahaayeen dekada Berbera oo dib u habayn iyo ballaadhin lagu samaynayo heshiiskani waxa kale oo horumarin doona xiriirka ganacsi wadaag ee ka dhaxeeya dalalka Somaliland iyo Ethiopia sidoo kale heshiiskani wuxuu abuuri doona fursado shaqo abuur oo bulshada Somaliland ay manaafacaadsadaan heshiiska Somaliland iyo isutaga Imaaraadka Carabta waxa Somaliland heshiiskan qalinka ugu duugay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire iyadoo madashana ay goobjoog ka ahaayeen badi wasiirada Somaliland ee ku sugan dalka isutaga Imaaraadka Carabta